gaariga Faransiiska ridayaan ku dareemo inay xiranta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت wanaagsan daawadayaal meel kasta oo dunida nagala socotaan. Saacadii ugu dambeeyay xog yaab leh oo ay shaacisay shabakada CNN waxa ay sheegtay in 4 saldhig oo markaasi mid kamid ah uu ku yaalo Somaliland intii uu socday dagaalka Iran iyo soo kale Mareykanka iyo Israel in Israel ay weerar kaga qaaday markaasi dhanka Israel. waxaan eegi doonaa xogtan iyo waliba saacadihii ugu dambeeyay marka ay soo baxday oo aad guud ahaan bay warbaahin kala duwan u qaateen iyo saldhigan ku yaala Somaliland ee aan la ogeyn ee markaasi Israel ay weerar ka qaaday ayaan sidoo kale soo qaadan doonaa. waxaan dhinaca kale eegi doonaa dowga sheekh oo caawa laga soo sheegay in mar kale ay markaasi kooxo guud ahaan ba xidheen iyadoo maanta la sugayay in la sii daayo Suldaan Qabile oo aanan markaasi wali xorriyadiisii dib u helin. waxaan eegi doonaa dhinaca kale magaalada Muqdisho kulan xasaasi ah ayaa waxa uu dhexmaray laba sarkaal oo sirdoon ah oo ka socda wadanka Turkiga iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo waliba xubno kamid ah mucaaradka oo khayran uu ku jiro sida wararku sheegayaan. waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay la xiriira markaas saraakiishaas sirdoonka ee Turkigu uu soo diray iyo sidoo kale gabi ahaanba xubnaha mucaaradka iyo wixii dhexmaray. mucaaradka qaarkood ayaa waxa ay hordhigeen Turkiga in gabi ahaanba ay og yihiin in markaasi uu taageersan yahay Xasan Sheekh Maxamuud. muxuu kaga jawaabay arrinkaasi ayaan eegi doonaa dowladda dalkaasi Turkigu maxay guud ahaanba kaga jawaabtay arrinkaasi. waxaan dhinaca kale aan soo qaadan doonaa xogaha la xiriira wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka u dhexeeya markaasi Iran iyo wadanka Mareykanka iyo waliba heshiiskii la saadaalinayay. waxaan dhinaca kale eegi doonaa dunidu waxay aad u hadal haysaa booqashada uu madaxweynaha ama guud ahaan markaasi hoggaanka wadanka Shiinuhu ku tagay wadanka Kuuriyada Waqooyi. Kim Jong Un ayuu markaasi la kulmay madaxweynaha wadanka markaasi gabi ahaanba Shiinaha. waxaa dad badan isweydiinayaan Shiinaha waxaa daray markaasi Mareykanka oo ka cabsi qaba markaasi inuu dagaalka ku soo biiro gabi ahaanba Kim Jong Un. waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay arrinkaasi la xiriira qodobo kala faahfaahsan ay barnaamij ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada. aan ku bilownay wararka naga soo gaaraya dhanka xogo markaas ay shaacisay shabakada ama guud ahaan warbaahinta CNN ayaa waxaa lagu sheegay in 4 saldhig oo markaasi mid kamid ah uu ku yaalo Somaliland inay weerar ka qaadeen markaasi wadanka Israel intii uu socday dagaalka u dhexeeya markaasi Mareykanka, Iran iyo sidoo kale Israel. xogtan oo ay shaacisay markaasi shabakada CNN ayaa waxaa lagu sheegay 4 saldhig ama guud ahaanba inay kala yihiin saldhig ku yaala Azerbaijan, saldhig ku yaala Ciraaq iyo saldhig ku yaala Imaaraadka Carabta iyo mid ku yaala Berbera Somaliland. waxaa guud ahaanba arrinkan uu noqonayaa markaasi hadal weyn ama xog markaasi aad u ballaaran oo saacadihii ugu dambeeyay ay warbaahin badan markaasi qoraysay taasi oo lagu tilmaamay markaasi in gabi ahaanba ay jiraan xogo la xiriira in ay Israel ku leedahay markaasi saldhig qarsoon oo aan loogeyn gudaha Somaliland. walow ay Somaliland markaasi beenisay arrinkaasi oo gabi ahaanba ay hore u sheegtay in markaasi aynan saldhig ku lahayn Israel wali aynan ka furan markaasi Somaliland gudaheeda. walow xogta markii ay soo baxday aynan Somaliland ilaa iyo hadda ka jawaabin guud ahaanba arrinkani haddana waxaa xogtani baahinaysa markaasi mid kamid ah shabakadaha ama guud ahaan warbaahinta ugu dhuun daloola marka la joogo dhanka marka arrimaha Israel iyo Mareykanka. guud ahaan waxa ay xogtani markaasi keentay in ay ku soo jeedisay markaas Somaliland indhaha wadamadii hore u socday markaasi gabi ahaanba iyagu indhaha ku hayay Israel ee raaqeeda. waxaa kamid ah Turkiga, waxaa kamid ah Xuutiyiinta Yemen, waxaa kamid ah sidoo kale wadamo uu ku jiro markaasi Sacuudigu si wararku sheegayaan oo isaga laftiisu raaqeeda markaasi Israel guud ahaanba ay dhibaato badan ku hayaan maadaama Israel ay ka ilaalinayso Sacuudigu inuu yeesho markaasi hubka halista badan ee nuclear-ka oo hadda markaasi ay isku diyaarinayaan gabi ahaan Sacuudigu inay sameystaan. waxaa dhinaca kale xogaha markaasi soo gaaraya qaybka inkastoo wali ay markaasi dowladda Israel hore u sheegtay in hadda Somaliland iyo Israel iska kaashan doonaan arrimaha la xiriira dhanka ammaanka ma aysan qarin hadda oo kulamadii ugu dambeeyay soo kale gabi ahaanba howlaha socda waxaa ugu weyn amniga iyo soo kale inay iska kaashadaan dhanka dhaqaalaha. dhinaca kale xogaha markaasi naga soo gaaraya Somaliland gudaheeda waxaa wali ay hadalhayn badan ka taagan tahay gabi ahaanba Suldaan Qabile oo aanan weli markaasi xorriyadiisii helin. sidoo kale waxay warku sheegayaan caawa ay markaasi gaadiid isticmaalaya markaasi dowga sheekh ama buurta sheekh markaasi in ay la kulmeen caqabado la xiriira wadadii oo mar kale la xidhay. maanta odayaal dhaqameed iyo sidoo kale
qaybo ka mid ah markaasi xubnaha dowladda ayaa furay markaasi wadadaasi isku xidha iyadoo gaadiidkii ku xanibnaa degmooyinka Sheekh iyo sidoo kale Berbera ay wadadaasi isticmaaleen balse caawa xogo kala duwan ayaa sheegaya in mar kale guud ahaanba laga dareemayo taagtaag deegaanadaasi. dhinaca kale waxa ay ugu baaqayaan markaasi inta badan salaadiinta iyo cuqaashuba in la sii daayo suldaankaasi oo dib markaasi xorriyadiisii u helo inaanan markaasi lagu bedelanin rabshado iyo dhibaato markaasi gebi ahaanba qof ama hawl yar oo la qaban karayo ama la sii deyn karayo. dhinaca kale magaalada Muqdisho waxaa ka socda markaasi gebi ahaanba wax lagu tilmaamay in uu yahay markaasi gorgortan siyaasadeed. gorgortanka siyaasadeed waxa uu kasoo guuray markaasi xabad iyo qori, waxaa hadda uu maraya markaasi uu dib ugu soo laabtay mar kale miiska wada xaajoodka. saacadihii ugu dambeeyay saraakiil ka socota Turkiga oo waliba sirdoon ah ayaa gaadhay markaasi magaalada Muqdisho, waxaana ay kulan la qaateen markaasi saacado badan qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale Ra'iisul Wasaare Xamse, Ra'iisul Wasaare Roble iyo xubno markaasi ka mid ah mucaaradka Soomaaliya. waxay wararku sheegayaan in ay mucaaradka Soomaaliya markaasi si cad ugu sheegeen Turkigu inay tuhmayaan markaasi gebi ahaanba in Xasan Sheekh Maxamuud awoodda ugu badan hadda uu ku faanayo inay markaasi dhanka Turkiga ay ka socoto, balse Turkigu waxa uu sheegay in uu kaliya doonayo markaasi maalgashiga adag ee Soomaaliya ka galay iyo sidoo kale gebi ahaanba howlaha uu Soomaaliya u hayo waa soo hadalka u dhigay in la ilaaliyo oo aan Soomaaliya dib loogu celinin gebi ahaanba xaaladihii iyo marxaladihii markaasi ay soo martay. sidaas ayay markaasi kaga jawaabayaan saraakiishaasi Turkiga uu soo diray. si kastoo xaalku uu noqdaba waxa ay la wadaageen in hubka markaasi loo adeegsaday, gaadiidka loo adeegsaday, diyaaradaha loo adeegsaday markaasi inay ahaayeen diyaaradihii Turkigu uu bixiyay looguna talagalay in markaasi lagula dagaalamo kooxaha argagixisada. Turkigu arrimahaasi ma moogana, waana cidda ka shaqeynaysa markaa in Xasan Sheekh Maxamuud gebi ahaanba talada lagu sii hayo maadaama uu hawlo badan u fuliyay ama u qabtay intii uu xilka hayay. waxaa Turkigu ay ka ballan qaadeen Xasan Sheekh Maxamuud arrimo waaweyn oo qaarkood wararku sheegayaanba in muddo dheer xitaa inuu sii haysto markaasi ay u ballan qaadeen Turkigu. dhinaca kale xogaha markaasi soo gaaray waxaa qayb ka ah Shiinaha. hogaamiyaha Shiinaha ayaa waxa uu tegay markaasi wadanka Kuuriyada Waqooyi, waxaana uu kulan markaasi la qaadanaya Kim Jong Un. xogaha qaar waxay sheegayaan in uu Shiinuhu markaasi xilligan ay isbahaysi sameysanayaan ka kooban Shiinaha, Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka iyo sidoo kale Iran oo loo isku bahaysanaya markaasi Mareykanka, Israel iyo markaa reer galbeedka oo dhanba xaaladuna ay qasan tahay. guud ahaanna waxaa hadda loo arkayaa markaasi gebi ahaanba in arrinku uu noqon karayo in dunida isku diyaarinaysa dagaal, cid walbo awood lana markaasi meesheeda loogu tegayo markaasi lagulana hadlayo oo ay ka mid tahay markaasi wadankaasi Kuuriyada Waqooyi. Kim Jong Un oo muddo markaasi isagu isku diyaarinayay dagaal inuu galo ayaa hadda u arkaya markaasi in la gaaray waqtigiisii ay dunidu markaasi isaga u baahnayd. akhyaarta sharafta leh wada nagala socoto tan iyo kulanti dambe.